بسم الله والصلاة والسلام على طه الأمين في كل وقت الواحين. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وفتح بكاعو ودلي دبد بيدين كالسلام يسوم دري جبوتي warkiyo baxardaada isagiyo boqshadaysan raadiyo bukaaco hal laga dhageysto waaqayla dhaan waa badbaado qaran waa dhilooyin waa dhacdooyin joogta say ballantu ahayd waxaan ku bilaabayaa gadiidshalladiyo cumar waa shahiid gacan ka xaq daran baa dishay maleeshiyaadka uu magafi hogaanka u hayo ee booliska waxaa falkaa foosha xun loogula kacay wiilka yar ee muwaadinka ah wax cadaalada iyo wax garsoora ma hayno qaranko isku duuban iyo hooyadii qoran waxaan u heelanahay u haraadanahay waa garsoor iyo cadaalad dhaba ilaahay iidankiisana waqtigii uu dhow yahay waana la helayaa haddii ammaanada la hayo mar walbood gadiidshalladiyo cumar maqashaan faataxada umara waa shahiid gacanka xaqdaran baa dishay in ilaahay naxariistiisii janno ka waraabiyo taa markaan ka gudbo waxaad naga haysataa liyetno fuaad yuusuf cali duuliyaha ciidamada cirka laba xidig leh fuaad yuusuf cali waa maalintiisii tobnaad wuxuu cunto ka joogsi ku jiro caq ismaaciil eed adaguna dhagaha ka furaysanayso eed wiilka yar ee muwaadinka ah ee reer jabuuti doonayso inaad ku talax tagto laakiin ilaahay ma odhan waa gardarro bareera waa qabyaalad bareera waxa wiilka yar ee miskiinka aad kula kacday inankii aad adeerka u ahayd wihiib mabuutu seeko ayaad wihiib eed ciidamada cirka u dhiibatay wihiib mabuutu seeko ayaad doonaysaa inaad uga eexato ood uga hiiliso to wayba dhacdo waa la wada arkayaa waa gardarro garab haysata inuu isaguna gabood ku jiro sanad iyo 2 bilood garya magla-aan wax allaaliya wuxuu sameeyey iyo wax cadaaladii inayna jirin dee taana ilaahay horteeda wixii aad kaga bixileed adduunyadana waa kuwa ciqaab iyo foolxuma ilaahay horteedana xisaabtii rabbi baa ku sugaysa waayo waxaan taa ku leeyahay hooyadii baa maalin walba ka hadlaysa reesooga damiir iyo dadnimo miyaanay jirin miyaanay hooyo ku dhalin bay kuu soo gaadhay allah u naxariistay hooyo fiican oo dahabaa ku dhashay ilaahay naxariisteedii janno allaha ka waraabiyo laakiin adigu waxa aad falayso eed samaynayso maalin aad mudan doontaa jiri doonta ummadan maanta aad sidaa ugu tumanaysa inankaa yar ee miskiinka ah waxa heer wuxuu gaadhay dhagxumo waa laga dhintaa geerida waa loo dhashaa ayuu go-aan ku gaadhay geerida waan u dhashay laakiin dhagxumo waan ka dhimanayaa buu yidhi nolosha maanta aan ku jirana geeri baan ka doorbidayaa buu yidhi miyaana damiir lahayn iyo dadnimo hooyadaa maalin walba ciyaysa ee 10 cisho inankeedu qadoodiga ku jira iyaduna qadoodiga gashay ilaan waa hooyo waa beer miyaanad ilaahay ka baqayn bisha barakaysan ee maaragtay juun bay ku tidhi fadligeeda nagu cafi waa bishaan heeryada iska rognay dadkii halganka kasoo qayb galay ahayd hooyadii aabihiina allaha u naxariisto marka inayna dadnimiyo damiir jirin taabaa noo cadaynaysa caaq ismaaciil ilmaha yare ilmahaaga lamida ah eed ku dhegantay wax allaaliya wuxuu kugu sameeyey isagoon jirin laakiin ilaahay baa maqan rabbi baa inoo wada dhexeeya waxa aad ummadda ku samaynayso ee daalim lambar 1 aad ku noqotay waxba aniga ha naga siin waxa aad mudato iyo cawaaqibkeega anaga waxba ha naga siin waliba adduunkaad ku arkaysaa waayo zamankan waqtigii diinku siday maanta dabaylaa sida caaq ismaaciil nafsigaadina kaa yar ka gashay hoostaan kuu gelinay laakiin anagu waan la baxaynaa ha dheeraata ha dhawaato samirkeedaan leenahay iyo adkaysigeeda waan la baxaynaa haddaan nool nahay oon maaragtay naftu nagu jirto xusulkay xabaal ka sarreeyo reer jabuutow raggeena gabood aan kala baxno arrinkaasaa socdee foolxumadaasaa jirtee raggeena gaboodan kala baxno caaq wuu ismahadiyo cudud buu isbidaye laakiin waxaan kuu sheegayaa cududdaa aad isbidday xumbo kacday baa tahay xumbo kacday oo waxaad ku dambayn doontaa nin daad qaaday xumbo cuskay waanad ogaan doontaa haddii la nool yahay laakiin fuaad yuusuf cali dhammaantaya isagaa nahay hooyadiina kelideed maaha waan la urku taaloonaynaa waan la murugoonaynaa dhammaan caawa oo bari loo dabaaldegaya calankii nooma cuntamaya annaga curadadayadiibaad jeelka ku xidhay ood bustaha gabood u dhigtay garya magla-aan kaniifyada ku xidhood wada casishay oo damirtay dhaladkii jabuuti marka waxaan leeyahay calanku wuu ooyayaa calanku caawa wuu ilmaynayaa wuxuu ka ilmaynayaa dulumka dadkiisa loo geysanayo marka dadkii shalay dhacsaday inaad garbaha u laabto ood caruurahoodii kaniifyada ku xidho qaarna gaajo ku xakunto dee waad ismahadisay
laakiin anagu waan iska kiin rogaynaa, heeryada waan iska rogaynaa. reer jabuutow maxaa inoo daa? ma fu'aad hooyadii unbaan maalin walbi dhegaysanaa? ma fu'aad hooyadii unbaan maalin walbi dhegaysanaa? war damiir iyo dadnimo aan yeelano, fadhiga ka kacno. fu'aad reer maaha, qabiil maaha, waa qarankoo isku duuban. marka waxaan kuu sheegayaa caaq ismaaciil, taa fu'aadaad u geysatay dhammaantaya waad noo wada geysatay. faruuryahana kuu qaniinsanoo ku cafin mayno annaguna maalintayadae ku talagal. maalin dhow baanad gacantayada soo galaysa haddii ilaahay yidhaaho. ku cafin mayno, waanan ku ciqaabayna wixii aad geysatay oo dhanna maxkamadaa lagu horgeeni. maalin walba sidii saxiibka cumal bashiir baa lagugu sii wadi, shabaglaho lagugu soo wadi oo gabood lagu geyn. adiguse waad ismahadiso inaanay dhacayn baad moodaysaa, laakiin way dhacaysaa. waa harkaa galabeed ee isrogaya adduunyadu. haddaad ismahadisay baroor baa kuu dambaynayo weer. taa markaan ka gudbo waxaad naga haysataa sarjan yuusuf maxamed cali gabase. sarjan yuusuf maxamed cali gabase isna sidii baad u haysataa. kii aad adeerka u ahaydee bendac, kii kaleed adeerka u ahayde maaragtay tallaabo igu soo tiqtiiqso, iyo kii kale abajahal, waxaasoo dhan iyo ciyaalkii yaryara sidaa maaragtay u haysta. kaasina sidaasi la-eg isna uu cadilan yahay, waa aabada yara, caruurahoodii baad ka xarintay. wax allaali waxay kugu sameeyeen iyo dembi ay galeeni ma jirto. dembiilayaashii iyo gacan ku-dhiglayaashii agtaaday fadhiyaan oo daawanaysaa. waxaa kaloo tajaro laga soo qaaday cumar daawud cumar cabdo. waxaa laga soo qaaday hay inamadii laga soo qaaday tajora eed iyagana bacsanayso. wax allaaliyo waxay kugu sameeyeen iyo waxay kuu dhimeen iyadoona jirin. cumar daawud cumar, cabdo dhaaxeelo, cabdo yuusuf, xumed cabaas, iyagana waad soo walwaalatay. waxay kugu sameeyeen ma jirto, waxay kuu dhimeen ma jirto. waa kas, waa kaa adki. soo gura un caruurta, soo dharbaaxa, soo dhabaneeya, gabood ka buuxiya. waxaa kaloo laga soo qaatay xaafadda shabeelley waliid xamed xasan, isagana gabood baad geysay. waa kii gabagabeeye iyo kiisii kale maaragtay digaago iyo isaguna u xidhan yahay. waa abida pouvoir, waa kaa adki caruurta waxa loo wada haysto. nin keliya oo dembi sameeyey oo lagu soo cadaynaya ma jirto. haddana dakhil baa 3 kale laga soo qaaday. walco geedda walco, odax xagaayo xamed, ibraahim cudum xaysama, iyagana waa la soo qaatay. waa dadka masaakiinta ah ee tiifta ku taalla. haddaad aragtiin ay xaadu idin istaagaysood ka naxaysiin ninkii damiirlay ka jiriracoonayo. marka dadka masaakiinta eed gabood u qoondaysay dee ilaahay aduu ku weydiin. hayla maxkamadda adaa u sarreeya, adaa madaxweyne, adaa ciidanka u sarreeya, wax walba adaa u sarreeya. wax walba waa adiga, wax walba waa adiga, wax walba waa adiga lagugu imanaya. dee meeshan anigu dowlad maahe waa casaabad fadhidiyo burcade. caruurta yaryar anagaa kala baxayna gabood, laakiin aduma isma lihido. adigu qori caaradii baad ku haysaa, dadkood moodaysa inaad naga adagtoodna barkatay. annagu adaan ku barkanayna oon dhulka ku jiidayna haddii ammaanada la hayo. taa markaan ka gudbo waxaa dhacday salaasadii bisha 22-keedii. waxaa dhacday salaasadii bisha 22-keedii amar baa fulay. waxaa dhacday in maaragtay xasan siciid ninkaas deesta haysta, xasan madoobe, xasan koorbo, uu amar siiyo abubakar axmed muuse oo loo yaqaano ina muuse silig. aad wada garanaysid ninka ina muuse silig ee bidaarta le muraayada site ku-xigeenka xasan siciida. xasan siciid markay 1:00 duhurnimo tahay ayuu amar siiyey ina muuse silig. xasan madoobe ina muuse silig buu amarka siiyey abubakar axmed muuse. wuxuu ka yidhi waxaan doonayaa galabta 4:15 magafe inuu iska soo xaadiriyo isdeesta. hadda hadalkayga si fiican u dhageysta reer Jabuuti. wuxuu yidhi galabta 4:15 inuu iska soo xaadiriyo. waa maalintii salaasada ay bisha 22 ahayd, bisha 6 2021 ayuu ka yidhi ina muuse siligow abubakar axmed muuse waa inuu magafe galabta 4 halkan yimaadaa iyo barka mesaajka. markaad fariinta u sheegtana isoo confirme. okay buu yidhi. ninkii ina muuse silig is qaatay nagaar buu tegey. markuu nagaar tegay waa loo diiday inuu galo. askartii joogtay ilaa qolo la carbiyay ahaa, ciyaalkiisii buu meel walba ku daadiyay. way diideen inuu ina muuse silig galo xirib meeshii nagaar booliiski. wuu iska soo noqday. markuu soo noqdo komisariyaga soo maray. komisariyaga wuxuu ka arkay mirgan ilaa gacantiisa midig habeenkii buu rashwada u soo guraa odayga mirgan. mirgan wuxuu soo guraa ilaa markii hore markii telefoonadiisii la garaacay telefoonadii buu qaban waayay. ina muuse silig telefoonadii buu ka qaban waayay ilaa nagaar biisa sii tagay. markuu nagaar tagayna waa loo diiday inuu galo.
soo noqdayna Muuse Silig wuxuu yimiday eenay tooley meeshii yarayde komisariyaagi markuu yimiday ayuu wuxuu ka yiri Mirgan la kulmay war Mirgan oo chefkaagi localiser chefkaagi buu ka yiri chefkaagi baa la doodoonaya waxa doodoonaya ninkii chefkii kale ee SDS Xasan Madoobe yaa doodoonaya Mirgankii telefoonadii buu garaacay waa laga qaban waayay ina Muuse Silig wuu ka tagay fariinta aadaan kaaga tagay waa inaad si dhaqso ah u sheegtaa in galabta 4 barka SDS iska soo xaadiriyo odaygii Mirgan wuu ku wareeray telefoonadii buu ka qaban waayay uu wada xidhay telefoonadii Magafe markuu doono wuu isbaabiya il disparaît waa markay runtu timaado wuu isbaabiya la socdaya hagaag u dhageysta qisadaas wixii ay ku dambeyn doontii warka waad maqli doontiin markay sidii tahay markuu waayay Mirgan ina Muuse Silig buu ad garaacdi jiri ina Muuse Siligna malaha uu mashquulay uu ka qaban waayay waa kade odaygii Mirgan isa soo qaatay ee soo kaxeeyay gaarigiisii ay yimiday SDS marka ay Mirgan wada hadlayaan waa cabaara 2:15 ilaa 2 inta u dhaxaysay waa markay wada hadlayaan ina Xasan Saciid Mirgan ay wada hadlayaan ninkii muxuu ahaayay ina Muuse Silig Abubakar ninka isna SDS waa ka koodiya barkii meelaha bay ahayd wuu iska socday Mirgan wuu waayay uu ka qaban waayay Magafe telefoonadii buu qaban waayay ninkii Mirgan fariintii lagaaga tagay de warka aad ku celisid buu yiri oo isa soo qaado SDS buu yimid odaygii Mirgan isagoo gaarigii kaga karaarinaya ayuu SDS yimid markuu SDS yimid hagala gudaha 3 nin oo booliis dibadda joogta 3 nin ee booliiska ahaa mid buu Magafe adeer u yahay waa askarta ilaalisa SDS waa ka kii telefoon qaatay ee la hadlay inankii uu dhalay Magafe xagar waa ka kaydi ninkii Mirgan baa halkan joogo aabaha ka hadlaya ninkii Mirgan ayaa aabaha ka hadlayo SDS jooga ninkii la waayay ee telefoonada qaban waayay Magafe aka telefoon soo dire ku soo dhacay odaygii Mirgan hada waa Mirgankii maanta oo dhan ka qaban laa waa ta ku soo qiiqiyay waa ka kaydi war Mirgan oo xageed joogtaa waa ka kaydi Balatoogan ka soo socda waa ka kaydi war yaa joog halka aad joogto joog maxaa dhacay war yaa joog halka aad joogto ku yiri Magafe oranay waa araya markaas uu ka oranaya chefkii baa ku doondoonayo de markaan ku waayay fariintan ku celinayay war buu ka yiri aabaha iyo chefka ba wase waafkiis waa langaashkiisiya aniga wax cid wax iga qaadi kartaa ma jirto cid wax ii sheegi kartaana ma jirtee halka joogto joog buu ka yiri Magafe oranayo Mirgan ku oranaya markuu ka yiri chefkii baa ku doondoonaya SDS ninkii Xasan Madoobe Xasan Korbo war aniga cid wax iga qaadi kartiyo chef doondooni karo ma jiro oranaya Magafe halka joogto joog Balatoogan ka soo socda markuu yiri ninkii Mirgan baabuurkii ha gaareeyo wuxuu dhex joogsaday restaurant Saba iyo hotelka Caaliya leeyahay dhexdooda ayuu gaarigii dhigu joogsaday waaga kiyo karaaraya yimiday baabuuradii halkii ugu yimiday marka waa 3 barkii 4 oo waxla weeyaan waqtigu marka waa ka soo karaaray halkii yimiday maana basaas yahow dariiqi ambutayaash baa ka dhacay waa Saba iyo hotel Caaliya waana taqaanin meesha ku taalo waa Plateau de Serpent waa banka beesayida sokadeeda yar meeshii booyadii hore laga jajabiyay ee Plateauga on faaskeeda weeyaan restaurant Saba iyo Caaliyana dhinaca isku hayaan waa ka intuu halkii soo joogsaday ay aabaha wase waan ku eri basaas yahow ana adiga shaqaynaysa badhadha waa ka qaylo magaaladii oo dhan ambutayaash waa la war ninkii maxaa dardaray awalba uu dardarnaayay baa lidhi fajc baa dadkii ka dhamaaday waxaad ka tidhaahaa ninka ku soo diray anigu 4 mawlid baan leeyahay nima haleelayo ka dheh waa fariintu tabiyaya on plan public dariiqa dhexdiisa waa la wada maqlay Magafe warkaas uu ka bixiyay aniga cidi wax iga qaadi karto igu sameyn karto ma jirto wili chefna ma aqaano waa hadaladiisii ambutayaash baa ka dhacay halkii yaray waa ka odaygii Mirgan de iska aamusay
وانا كاري وكاين شقاده انا بدي بساساysay anigu arbacada 23keeda bisha lixaad 2021 waxaan leeyahay mawlid waa maalintu shaaritoon de joogay oo xasan siciid dhabarka ka taabanayay daragteen baable nin beenli waalid waa nin baable xasan siciid bu garabka sax isagoo u taabanaya layna tusay waa film waa falaq iyo fal shaydaan ee u sheeg anuu ma haleelaya waqti uma haya maanta hururuf socooy markuu socday wax kale looguma yeedhayna afar shay baa la rabay in laga xaqiiqsado ila waad arkaysiinoo aygi balaqooyo waa ka meelaha dhacdhacaya balaq ku joogsan eta parallel bisku sii daayo presidentka joogta ila mariyaan presidentka kama dhamaate waa galabihii bay presidentka timaada waxay xeerinaysaa banaga garanayna halkii bay timid presidentskii bay timid galabtii halkii buu ugu tagay walaashay waan shaqeynaya anoo shaqeysanaya waa lay deyn laayahay magafe markuu eta parallel ugu tagay presidentka waatii sidaa u yara eegtay markay sidaa u yara eegtay ayay ka tiri iska soco waynoo halkeeniye wuxuu ku yiri waan ka shaqeysan kari laayahay buu ninkan indhaha casle xasan madoobe markaasay ka tiri waryaa iska soco waynoo halkeeniye macnaha waynoo halkeeni reejibutow miyaan garanaynaa maxay ka dhigan tahay marka xalqadaha dambaan kaga hadlaynaa waynoo halkeeniye bay ka tiri magafe iska soco xalqadaha dambe haddii ammaanada la hayo ayaan kaga hadlaynaa marka iyadu eta parallel waxay doonaysaa sida iyadu doonayso inuu dalkan iyo dadkani ahaadaan de annagu waxaan ka leenahay adiga iyo waynoo halkeeni waad israacaysa in caaqo kulli dooni quraad saarantiina badda ku wada dhaca waxa loogu yeedhayay oo la doonayay in loo sheegaan idiin sheegaya reer Djibouti waxa laga yiri magaalada buuqaad ka wado George baa yiri waa afar shay baa loogu yeedhay waa digniin waxa la yiri buuqaad magaalada ka wada George yaa la rabay in loo sheego waxa laga yiri sida aad u socoto si nin askari u socdo ma aha dilaal baa tahay joogso waxa laga yiri midda kale Facebook ka bax aad bustaha dhex dhigatay Facebook aad bustaha dhex dhigatay ka bax iyo fidnada aad ka wado ka waran askari sidiisii uma socotid aanay toolay Facebook ka bax fidnadana ka jooji umada reer Djibouti afarta ayri baa loogu yeeray laakiin de in uu bays qaatayo eta parallel buu u sheegay wuxuu ba iska dhigayba khabiir amarna waxa lagu soo rogay maanta oo khamiis ay bishu tahay 24 booliis dambeynuna ilaalinayn SDS hayna wada basaas buu baray qurun buu baray dadkii wax ku kastiba wuxuu leeyahay aniga ii basaaso aniga wax ii sheeg maalinta dambe isaga naftiisa basaasaya sheekadii halkaas ay maraysaa arrimihii ugu waaweynaa ee lagu haystay wixii kale oo dhan waa loo soo wadaa laakiin imika waxa la yiri magaalada buuqaad ka wada jooji waxa laga yiri sansaankaagu sin askari uma socotide comportementgaaga iyo asluubtaada bedel baa la yiri wayu ba tahay ta kale waxa laga yiri Facebook ka bax aad dhex jiifto waxa Facebook ka dhex qabanaysaa baa laga yiri nin mas'uulan ku moodayne ciyaala suuq baad Facebook baad bustaha dhigatay fidnadana ka jooji umada reer Djibouti iyo Facebook waxa aad ka wada laga yiri waxa la ogaaday inuu Facebook isagu ku jiro waxaan ka socdanay isagu aaba ka yahay la socdaya halkaas sheekadii maraysaa de magafe wax badan buu maleegay balaayo kastuu sheegay khabiir buu iska dhigay wakaade maanta aakhir yaa khayba waxaan idin sheegaynay de wakaanagu xankii eta parallel buu raacay war sheekadani qaran dhan baa duminaysaa habla cawrada lagugu haystaa fawaaxish iyo foolxuma dalkii ka dhacay adigu mas'uuliyadeeda leedahay maxay ahaayeen meerkiirkii baad gashay wax walo xun baad aaba ka tahay marka in lagu yiraahdo si askari uma socotida dilaal baa tahay good for you laakiin waxay ku haystaan baan garanayna nagu kulli faraad ka haysa adiga wax sheegayeen taamarkan ka gudbo foolxumadaas waad wada aragteen qeyr mas'uulnimadu waxay ka dhigan tahay magaalada dakhil qayla ka soo yeedhay ninkii aadan curri ee barefeega ahaa waxa dhacday waxa la bilaabayaa 10 kun ee dadka lagu maaweelinayay 2 kiilo ee bariis iyo 2 kiilo ee sankara dadka masaakiinta hunguriga lagaga soo ridayay ayaa la bilaabayaa dukaanada dakhil ayaa la siiyaa oo dadka siin jiray maanta kontraag uu siiyay wuxuu siiyay islaantiisa iyo islaan isaga dow ah oo la raacdo dukaan male badaan male laakiin qadaraaska cado iyo gabadh cado isaga waa eedadii aadan curri eedadii weeyaan cado
iyo isaga xaaskiisa labadaasu qadaraaskiisii dadkii dukaanada lahaa ee reer dakhil ee badaadka bixinayay ee dukaamada lahaa aawayde aadan curri ma brefee baa tahay ma dukaan laa tahay ma dilaal baa tahay ma rinjiilaa tahay ma entrepreneur baa tahay xaggee lagu qaaday brefee baa tahay wixii soo dhacaba xaggee dhexda ugu joogsani oo dukaanlayaasha reer dakhil ee masaakiinta cid walba leh cafar leh Soomaali leh Carab leh aad irsiqooda u goyn caddase goormay dukaan lahayd goormay badaan lahayd islaantaadu goormay dukaan iyo badaan lahayd islaantaadu maalin kasta lacagtu soo dhacdo kontaabalka 500 kun baa uga qoran waxay ku fashana lama garanayo wada Djibouti timaadee rarata waxaana waan keeni doonaa haddii amaanada la hayo marka aadan curri shalay baa aqalka brefeega markii la dhisayay waa aqalkaad adigu gasho ayaad adigu ka noqotay entrepreneur oo rinjiyo biyo amarisay oo kontraagi adiga lagu siiyay lacagtiina jeebka ku shubatay haddana ma bariiskii iyo sonkortii dadka masaakiinta ee dukaanleyda ayaa dhexda u joogsan dee waa Kacaaq Ismaaciil laga baray laga badi waa cilmiyadaad ilaa taa baraleela ku hor rooraysa oo wax walba shuqlayso shaandhaynaysa la arkay dee ku kastiba waatan hor rooraysa de sidaas ka dhacday magaalada dakhil dhibtaasaa taala dukaanlayaashii masaakiinta ahaa wuu hordagay oo iminku doonaya islaantii caddo ee eedadii ahayd iyo islaantu isagu qabo gabadhiisa ayuu doonaya qadaraaskii raashinka inuu iyaga siiyo dukaanlayaashiina dee waxaasaa ka socda risq maanac bay wada noqdeen irsiq goys bay wada noqdeen falaagiyo waxay noqdeen waxaa fudud ee wada yaacaya fidnada ah ee dadka wada baaranaya waryaa aadan curri fadhiiso majnuun mulabas baa tahay waxa xilka kuu dhiibtay iyagaa kaa daran fadhiiso oo ka dhex bax dadka masaakiinta ah iyo dukaanleyda masaakiinta ah waa irsiqoodii waxaad hor joogsanaysaa caddo oono eedada haddaad dooni dee orad adigu u rar waxaaga wax ka sii maxaa waxa dadka masaakiintaad siin dukaanleyda reer dakhil waa in loo qaybiyaa waa in waxa dukaanleyda si cadaalada loo siiyaa kollay 10 kun waa 10 mahooy oo ku go dadka laga odhanayo muqdarkii reer Djibouti baa 10 kun oo raashina laga dhigay oo waliba loo fadhiisanayaa dhexda waxoogay xageed marisay Caaq Ismaaciil marka 10 kun oo raashina u qortay xoolaha toomi diyaaradaha ugu iibisay markaas aadan currina dhexda u fadhiisanaya dadkii masaakiinta kaad keentaanba ka kala ka dare yarkiinuna waa yurtaa geesaha leen arkaynade ee ummadda ka qabo masaakiinta ah aadan curri ka fadhiiso dadka ammaan si cadda male badaan male dukaan ee ummadda ka hara ummadda masaakiinta ah eed ku tacadiyaysiin eed ku tumanaysiin eed cabsida u disheen goorma cadda dukaan lahayd goorma islaantaadu dukaan lahayd raashinka 10 kun laga tagay markaas 2 kun laga sii goosan dadka masaakiinta oo 8 kun la iskugu celcelin war ilaahina ka baqa war qabriga qiyaama idin ka dambeeya dhulku idin la dhaqaaqi waxa iyo wax ka daran iyo foolxumadaas ayaa jirta iyo ceebta ayaa ka socota waa aadan curri baa laga soo hooyan laayay waa brefee waa commerçant waa entrepreneur wax walba waa aniga buuli waa kan de soo xaydan almajnuun mulabas ka fadhiiso dadka kuwii cimri waxa la kuwii miyirka qabay markaad aragto kana ka daran bade majnuun mulabaskan kii waalna iyo kii miyirka qabay si mid haday wada talaabsadaan yaa dadka ka mas'uulade adigu Caaq Ismaaciil kaad keentaaba ku kala kada midba midku ka liita dadka u keenta wax fayooba ma rabtid adiga liita maaha adiga liita oo tiicaya oo talax gabay marka wax maba kala garanaysid ninka mas'uul noqonaya ninka mas'uul noqonin shaqadaada maaha adi waa waxa soo meeran markaan ka gudbo magaalada Casceela ee Goobacad waa laga dayriyay biyo la'aan baa loo dhintay waxaad arki doontiin jirikaanada iyagoo sida ula meeraysanaya Goobacad haraad bay u dhintay wax urgurmanaya oo biyo u geynayaana ma jirto haraad baa loo dhintay Cali Sabiix haraad baa loo dhintay maanta aan idin la hadlayo oo khamiis tahay bishu 24 lixdii iyo barkii makhrabnimo kooraankii go'ay sidii Djibouti uga maqan yahay waa kooraan la'aan iyo biyo la'aan kooraankii aad Itoobiya ka soo qaaday iyo biyihii aad Itoobiya ka soo qaaday milyaarada lagu bixiyay waa kaada ilaa Djibouti baa bila biyo adi maxaa ka galay ceel macaan baad haysataa adu ceelkii baad macaansatay ma badii baad macaansatay qarkeyga saaran tahay de wixii haraadaya wixii dhimanaya waxba kaama gelin shaqadaada maaha shuqul kuma lihid danahaaga maaha ha isku dhintaan adu wixii adu doonaysa lacag baad u fadhidaa marka ummadda masaakiinta ee reer Djibouti ee halka ku cadiban ee halka ku ciilan ee bila biyaha ah
ilaahay aduu ku weydiin wixii milyaar aad bixisay Ethiopia biyo na siinaysa biyo ka qaadatay biyeed Ethiopia aylan Masar baa biyo ku keeni ma iyada ku siin biyo Masar baa ku keeni biyo marka horeba fusuq iyo musuq bay ahayd lacagtaasi milyaarada Ethiopia lagu bixiyay la sheegay musuq iyo fusuq bay ahayd caaq Ismaaciil lacaga la xado la weecsaday ahayd waa waxa soo musuq iyo waxa soo beenayo waxa soo tuuga ayaad adigu kabaayirkeedood aaba ka tahay cid kale aaba kama aha oo adiga ahayn adiga aaba ka cid kale aaba ka ma jirto waxa dalka ka dhacay haraad iyo gaajo iyo biyo la'aan iyo kooraan la'aan wax walba iyo silic iyo saxariir wakaade kooraanki milyaarada lagu bixiyo biyi milyaarada lagu bixiyo dadka iyagu maanta gaajo uga dhimanayaan kulayl uga dhimanayaan waxa ka socda dalkii waxa kaloon arkayay meesha reezooga asan ismaangi baa la soo dhigay ridisayla maxaa asan ismaanga saa u galay wixii asan ismaanga lagu sameyn lahaa waa waxan daaraha lagu dhistay yaa dhistay ra'iisul wasaaraha Yibuto Garak Mobil 28 sanadood buu directorka oneedka ahaa markii dambena wasiir buu noqday inanu sadagu yahay baa oneedka ka director waaninka al-Amir Maxamed Fuaad ee Dubai iyo Faransiiska aqalada iibsanay wixii asan ismaaga dadka loogu sameeyay lahaa iyaga jeebka ku shubtay reerkaas uu xalaalay Yibuto Garak Mobil yaa inta leh waana la xisaabin 28 sanadood ayuu directorka ahaa Yibuto Garak Mobil wixii foosaska iyo muulalka lagu hagaajin lahaa waa waxa dibadaha la dhigtay guryaha lagu dhisanayo reer Yibuto ana waxaan idin kula tagalaynayaa kooraan iyo biyaha bixinina iyagu ma bixiyaan kooraan iyo biyo ma bixiyaan markay niimaadin qoondaal la dhaca iska celiya jaamacadeed kooraanka male isagu male dhaxalkiisii maaha waa la ii sheegay maalin dhaweed kaartekaad iyo kaartesaan inuu konteerada intuu askar soo kaxaysta doonaya inuu ka gurto jaamacadeed adiga iyo ninka kale maartay Yibuto Garak Mobil iyo dhamaantiinba waxaad ku naaxdeen ee ku xoogaysateen waa xoolaha ummadda ma kooraan baad bixisiin ma biyaad bixisiin tuugi ay meesha iskugu timid dadka cunaha u fadhiisanaysa waa reer Yibuto kooraan iyo biyaha bixinina iyagu ma bixiyaan wixii ay iyagu bixin lahaayeen inaga la inaga qaada waxay shitaan inaga inaga qaadaan wargeeridu waa xalaal ka kaca fadhiga oo duligan isdhaafiya tuugtan meesha iskugu timid ha bixinina kooraan ha bixinina biyo jaandaaranka soo raacana iska celiye booliisku ma isaga wax haysta soo kuwan wada cagaagan jaandaaranku maxay haysta soo kuwan caga gabagabeeyaa la inii soo diray ma qoorta ka gooyay isagana magafe sidaas leeg iska celiyo ubadkiini baa gaajoonayo bila biyo bila kooraan maxaad ku bixin kolka kooraanka iyo faktuurka kulmaaseerka iyagu shitaan ba shicibka laga qaadaya caaq Ismaaciil guriyihiina ilaa madbaxa la shidaa marka dambena la yiraahdo naga fura daaqadaha qabowga naga baxee ma taasa doonaysa dadka masaakiinta inay ka qaadin kooraan iyo biyo waar ha bixinina reer Yibuto ha bixinina isku tashada ilaahay talada saarta anu intaasaan idin faraya tuugtan hadii la iska celin waayo sharci kuma iiban xaq maaha maanta dawladdan jirta waa tuugo burcad bob marka ma burcad iyo bob maalin walba u taagnaanayso reer Yibuto fadhiga ka kaca taa markaan ka gudbo jaamacadii halka hor ahayd wadarki doontiin fiidiyogaad ka arki doontiin wax walba dhalinyarada iyo albaabkii loo joogsado la yiri lama galayo maxaa dhacay kii aan lacag bixin ma galayo ninkii doctor ninkii presidentka jaamacadda ee jaamac la lahaa iyo maartay wasiirkiisii Nabil waxay go'aan ku gaadheen hadaan lacag la bixin jaamacadii la garan waalidkii lacag ma haya caaq Ismaaciil ka keenayaan dadku lacagta dhabarka marsateen aqalkaaga la geeyo laga dadku waa bilaa mishaar lacag ma hayaan xagee lacag laga keenide jaamacadda carruurta intaad maartay moralka u dhisi lahaydeen ayaa dhabarka ka jabinaysiin Soomaab waayo kuwiinu jaamacadda Djibouti ma dhigtaan xoolaha Djibouti dibadda ku dhigtaan caruuriin xoolaha Djibouti bay dibadda ku dhigtaan jaamacadaha qaaliga lacagta Djibouti baad kaga bixisi kuwana lacag baad kaga qaadaysiin dalkooga dhexdiisa iyagoo ban awoodin oo ban haysanba oo gaajoonaya qaar baa safarada ku yimaada jaamacadda qaar baa lu ku yimaadon awoodinba bas inay soo raacaan oo waalidkoogu lacagta yar jaamacadda la bixinayo ururiya markaasaad waliba albaabka u joogsanayso inaad leedihiin ma soo galayso waryaa jaamac waa ninka directorka jaamacadda sheegaya been baa lagu sheegay halka aad lugaha kula jirtana waad ogtahay waana soo dhigaynaa hortaajira sida loo galo laga furay reerkii hore marka attention laba goor ya jaamac attention laba goor waan ku sheegay anu halka aan ka hadlayna maanta waad fahmaysaa marka adeer caga dhigo oo caruuraha yar yar ee doonaysa inaad lacagta ka luflufataan waa waqtigaad lacagaha luflufayseen ka fadhiista budget bay leedahay jaamacaddu waa 4 milyan jaamacadda maxaa la siiyaa yaa la siiyaa 4 milyan yaa loo geeyaa xoolaha inta leeg
caruurtu inay bilaash ku dhigtaan weeyaan jaamacaddu waa jaamacadoodii waa dalkoogii waa in burs lagu siiyo weliba xaq bay u leeyihiin in qalinkooga iyo buuggooga ayna ka fikirin iyo halkay seexanayaan iyo waxay cunayaan ilmaha yaree wax baranaya iyo caafimaadkiisa inuu ka fikira ma aha waa sida aad kuwiinaba u samaysay inaad xoolaha dalka ugu maalaysaan markaa jaamacow way noo bilaabantay kubaddu way noo bilaabantay jaamac daanaxdaanaxow saturday night fever warkaaga waan keenayaa waanan ogahay halka aad lugaha kula jirto warku magaaladu ku jiraa hortaajiraba halkuu maray waad arkaysaa maa markii reerkiisii hore laga furay isagana bacadkaa la soo dhigay markaa ka fiirsaan kule waxa aad ku kacaysiyo dhegta lagu fadhiistay adeer annaga waxba nagama kaagelina joogso haddaad joogsan wayda waa lagu joojin caruurtan yaryareed baadhanaysiin maba awoodaanba lacag maba haystaanba hagee ka keenayaan lacaga hagee ka keenaya kii bixiyo gal kii kalena ma gelaysid maxay ka dhigan tahay waxaasi waa tuugo iyo burcadnimo maa xoolihii hore halkeed geyseen wixii ummadda halkeed geyseen dalkana kama muuqda dadkana kama muuqde waa kan dee toomi diyaaradaha ku yeeshay waa kan toomi dee dadka iyaga ku durduranaya carruurta iyada siduu doona ka yeelay jeebtuugga loo wada galay waxaasaan sugnaa annagu kaama yeelayna dee caaq ismaaciil u sheeg ninkan jaamac dunta iskugu kiin xidhan baryahane ninkan jaamacadda aad dhigatay dunta iskugu kiin xidhane naga qabo aduu ku maqlaa baryahane xagga iyo haramuus maaragtay yuu ka shidaal qaataay waan ognahay warkiisi waan oglahay si fiican baan warkiisa u haynaa annagu waxaasoo dhan iyo fusuqaasoo dhan iyo fadeexadaasoo dhan baa dalkii meel cagaha layniga dhiga lalaayahay waxaa kaloo jira ninkii joel ee boorkee maalintii dhaweyd ka hadlay joel waxa weeyaan lacagtiisu mushahaarkiisu waa 1,800,000 baabuurka uu wataa waa fortiner kii u dambeeyey maalintii waa 40,000 oo faran bishii waa 1,200,000 1,800,000 iyo 1,200,000 maxay iska dhalaan reer Jabuuti 3 milyan kooraan iyo biyo markaad ku dartiin iyo kirana milyan kale waa 4 milyan bijeega bishii uu qaato isagu waa Joelia waa odayga la tirteegay meesha fadhiya 4 milyan muxuu ku qaataa muxuu se qabtaa waan daba gurnay waan daba tagnay maxaa keenay baabuur kiraa jaamac arro maxaa keenay baabuur kiraa mad baabuurada boorka mid siisiin 40,000 bil kasti maalin kasti in maari loo xisaabiyo maxaa keenay de waa wax la boobaya cadcadaawo ka soo gacay weeyaan joel 4 milyan laakiin bombiyega masaakiinta salaarkooga markay gris salarialkooga hadii lacag loogu diro waa 2,500,000 hadaad u toosiso 2 ilaa 2,500,000 halka uu isagu qaadanayo bishii 4 milyan kuwanina markaad wax walba u biiriso waa 2 milyan ilaa 2,500,000 bay noqonaysaa bijeego kana bishii 4 milyan qaata de joel wuxuu meesha u fadhiyo waan soo xansaday waan soo ogaaday maanta aan idin sheegaya reer Jabuuti joel waxa loo haysto ee loo bumbuuninayo ee maartay kilkilada loogu haysto anaa idin sheeg joel wuxuu sameeyaa bijeega bombiyega bijee aniyelka bombiyega jaamacad uu gacanta kaga rida bombiyegu dhar ma haystaan kaba ma haystaan ka waramata haye warade jaamacaro waad ogtahay maaha dhibta adiguna waa adigan lacagaha iyo aqalada bilaabay aqalada dhismaha galay halkaasay sheekadii ka socotaa dhismaa la galay dadka masaakiinta ana waa lagu dul tumanayaa odaygan canta tafka ee 9 jirka ee la tareed 2 gool galay baa halkan ku haysataa buqkuwaade muke heli lahaa 4 milyan dalkiis kama heleen waa lacag 30,000 euro u dhowde xagu ka helaya de noo sheeg waa lacagtan la daadinaya dadkii lahaana ka gaajo ragga dabka iyo badda iyo wax walba ku dhacaya maalintii dhoweed markabkii habeen iyo maalin ku baktiinayay sanka ka wada galay maartay qiiqi ayaad waliba mushaharadoodii aydan u biirinayn griil salarialkoogii waliba waxa la ii sheegay lacagtii carruurta inaana boorka la siin allocation familialki marka joel lacagta bijee aniyelka bombiyegu gacanta kaaga ridayo danahaaga danta guud baad ka raacday danta gaara ma marka joel aduu ku fadhiyaade jaamac arro wadani baa qaban kara shaqada 100 wadani baa joogo qaban kara maxaa loo siin laay wadaniga maxaa loogu quuri laaya ilaan joel cambar ma xaaree muxuu noo qabtaa odagan isdhaaf dhaafayaad meesha ku haysatiin tuugadaabuu kuu xalaalayaa de jaamac arro adaad guryaha ku dhisanayso inankaagu maalintaad directeerka noqotay ilaa maanta waan ku soo noqon haddii ammaanada la hayo edisyonada labaad iyo xalqadaha labaad baan kaga hadlay inankaagu wuxuu ahaa iyo waxa uu maanta yahay iyo sida aad ugu maalayseed kuwa kalena cududa ugu celinayso ilaahay maad ka baqdid qabriga qiyaamaha kaa dambeeye carruurtan masaakiinta ah eed xaqooga ismarinayso uu joel kuu xalaaleeyey adiga joel saabuunta iskugu kiin jirto
waxa iyo wax ka daran ayaa meel walba ka socda markaasuu 3 bilood ee allocation familialkii caruurta nin waxa jira maxamuud la yiraahdo oo rasuul simaaga fadhiya seenasaskii markii la tagay waxa la yidhi lacag bana looma soo shubin waxba naguma lihin kani seen fadhiya rasuul simaaga maxamuud la yiraahdo muxuu lacagta u shubi lahayaa allocation familialka aabayaasan lacagtooda way u baahan yihiin saddex trimester buu ka haystaa maxaa keenay kani maxamuud aad carra lama hadli kartid isna muu kuu dhiibaa maadoo ku siiyaa lacagta de waa wada sidaa dadkani waxoogii bay idinka laayihiin waxay xaq u lahaayeen bay idinka laayihiin oo jiirjiiraysiin allocation familialkoogii maxaa keenay inay waayaan grill salarialkoogii inaad hagaajisaan idinkuse waxaa doontiin baad samaysatiin idinkuse qalinka idinkaa isku haya waxaa doontiin baad qabsatiin dee ninkan maxamuud muxuu lacagta seenasasta u shubi lahay lacagta caruurta isla ma intaasaa tidhi ku shaqo tag adeer iska siiya dadka masaakiinta xoolahooga ee habeen iyo maalin bacadka taagan waa ragga baabuurada waaweyn iyo kilmaaseerada isku ilaalinaya raggan jooniiska ka qaaday cadceedda ee masaakiinta ee saaxiibul ciyaalka ah marka inankaagana waan keeni doonaa wuxuu ahaan jiray jaamacow iyo waxa uu maanta yahay taariikhda waa la wada keeni inaad idinkuun isku maashaan idinkuun inaad wax isa siisaan idinku inaad isku camirtaan 4 wiil adeerka loo yahay ee caaqo meel walba ku daadiyay laakiin de way dhamaanaysaa ragga waxaan leeyahay boorka jooga waar ilaahay rag buu idinka dhigay heeriyadan iska dulqaada waar iska dulqaada foorarkan ka kaca foorarkan dulligan aad isa saarteen ilaahay dulli idinima badin xooggiinna iyo xalaalaad maalaysiinad bacadka u taagantiin ninka xooggiinna xalaashada iska celiya dee nin iyo nin baa tihiin waxay soo doonaan dhagaxayaha soo daadayaan iyagu hadhow gaboodkan ay nagu cabsiinayaan iyo xabsigan iyagaa ku dambayn tuugtan wada alalaxa ah waxa kaloo jira kiim boorkii halka hore SGTD-dii Cabdilaahi Cadaawasiga wuu maqnaa uu dooratal majaaniin buu soo maray ninkii madaxa cali kacsi yala shoof suuriga uu yimid imika mushahaara ma jirto lacagtii uu soo dhameeyay markaasuu ku leeyahay lacag ma jirto waxa ku daa weydiiyay Cadaawasiga waa ninka shoof suuriga waag idagayso waxaan ku weydiiyay Faransiiska tagtay ma de tibir baad goosatay ma hodeel baad gashay ma vidange alhuile baad soo samaysay ma waad soo viidaysay xoolihii dadkan aad isku soo viidaysay maantana bilaa mushahaar bay yihiin maxaa keenay adigii baari kolba hodeel jiifay maxaa keenay noo sheegtay baabuurka un baan ogeynin vidange alhuile loo sameeye bini aadan loo sameeyana adaa u horeeyay de waa soo faaruqisay soo viidaysay vidange baad doonatay de lacagtigaad ku doonatay waa raggan maanta mushaharada aad u diidantay masaakiinta waa xaqoogii de tibirkaagii hotelkaagii depenskaagii waa fred maarate porka ma laakiin iyaga markay joogto mushahara ma jirto war ka kaca fadhiga idinkuna ka kaca fadhiga oo Cadaawasiga miiniga Italy intuu yahay adiga arkay cali kacsiga madaxa gungu dhiganay qafiifka waa la casi waa la cad wax la yiraahdo ma garanayne waa la asbaab leeyri waa libuba matalaaba lagu leeyahay de haduu waalaya daniisu waalaya dhakhtarada aad tagade waa ka Faransiiska ba vidange u tagaye marka caruurtan xoolahoogi aad isku soo viidaysay iyaga leh fooskaad soo saartay Soomaa xoolaha raggana leh xoolaha raggana leh 7 malyan ka qaadanaysaadu ayaguna 100 kun laayihiin ay xaqoogi laayihiin bilaa mushaar ilaa maanta yihiin maxaa keenay mushaar ma jiro maxaa keenay brinda solaygi ma jiro maxaa keenay adoo adiga to milyan ku soo tuntay oo isku soo faaruqiyay isa soo fiideeyay wariya si dadka masaakiinta lacagtooda si Cadaawasiga si xoolaha meeshaad ku burburisiyo meeshaad ku baabiisana waan keenayna hadaan amaanada haynaano hadeed idinka arimayna war idinkuna iska celiya oo fadhiga ka kaca waxaan idinkaale waa xaqiina nina u daba fariisanina waxa kale oo jira xafadi kartid ruux ninkii Facebook baa bustaha dhigtay Mustafa Jaale Mustafa Facebook Mustafa manaqan wuxuu yahay Mustafa Fayaanbira ciyaalkii turwaaba qabyaalad loo kala qaaday bad goorma turwaa galeysay waa Mustafa Facebook goorma turwaa taqaanaado shiina ku ama dealer oo dadka ku soo qafaashay wariyaa shiina joogso Mustafa reer turwaana ma arag turwaana ma yaqaane Mustafa Facebook turwaana ma yaqaan turwaana ma arag uu ku riyoodaan malay goorma turwaa jooga yuu yimid Jamal Burar ka dhigay ninka Fayaanbira ka soo angaraaracay caruurta reer kaarta turwaa kala qaadaya qabiilka iyo maartay ducaynta uu la yimid halkee siday ku dhacday inaad caruurta yaryar ee masaakiinta aad kala qaadqaadood kol boqolo iyo kolba meel u kala rogto ma habar walba turwaa gasho wariyaa Soomaali cid walba joogta turwaa
cafar baa joogta, carab baa joogta, suudaan baa joogta, cid walbaa kaartay turwaa gasha. maxaa keenay in wax alaaliya waxa shaqo laga geynaya habara wal noqdaan caaq ismaaciil? maxaa keenay in isaaq lagu kala qaado turwaa? mustafa facebook yuu yahay, sinjigaaba kama soo jeedee jaalle mustafa facebook qolamaa tahay adu iyaa ku yaqaana. halka hor iyo fayaan biiraad ka soo xangaraaracday carruurta turwaaba doonaysana dhulka u sheegato dhulka ku dhalatay ee reer turwaaya ha kala qaadqaadin horaa reeshi xisaxaaq loo kala qaaday. marka arab iyo garxajis iyo habar jeclo waxba kumale miyaa? waa ku dhasheen ciidana iyagaa dhacsaday waana dhulkoogii. laakiin adu anaga nagama mid ma tihid dee mustafa, waad is og tahay adu cidda aad tahay iyo sinjigaaga waad og tahay. marka adiga iyo tani kale maaragtay mawaantooda maweynaato safiya madagaskar labadiinuba sinjiyadiina si fiican baad u taqaaniin. marka ma carruurta yaryar ee turwaa ku dhalatay baad kala qaadqaadaysa inaad qabiil u kala eraysid. tii kale elisa afbuur beenaley allaw duda sawtii maalintii kambaynka ciyaalka ballamaha u qaadaysay aawayde xaggee isku xidhay? albaabaday xidhatay dee danaheedii bay gaadhay. marka carruurta yaryar ee reer turwaa waa mid. carruurta yar ee reer turwaa way ka siman yihiin, waa wada reer turwaa. kuwii kale way idinka wada yaaceen kuwa hargeysa fadhiye ee lafooga idinkala cararay, qaarna boorama tegey qaarna hargeysa tegeen. markaad mustafa jaalle iyo maaragtay safiya madagaskar mawaantooda ma weynaato aad hor wado, shiinow edab yeelo. mustafa harkuu jiidi maayo, waa habeen tagay sooma laabto. baruu fayaanbiira ku noqon, fayaanbiiruu berri ku noqon. waa kuu sheegaya u kaa baxsan. adigaa lagugu jijiidan meeshan oo lagugu karbaashi. adigaa u dilaala, adaa turwaa dadka kala qaadqaaday. waxaan habara walaha inaan cid la hadal. waar turwaa cid walbaa gasha, isaaq cid walbaa ka joogta turwaa. ha kala qaadina, dadku waa mid, waa walaal. carruurta yaryaraa ee reer turwaa ee dibloomada lahaa gaajay kax yihiin. markaasaad ciddiina mahayna cid kale aad diideen inaad ka qaadaan shaqada. taasi ma xaq ilaahay baa caaq ismaaciil? waa dowladaadaa keentay da iyo shixnada foolxumadaada aad wadatiin. waxaan idiin wada shaqaynaya ee qabyaalada maahine aan wax kale aqoon. mawaantooda maweynaata inantaadi samiigaad u shaqo gaysay maa dibloomkay haysataa baagba may heline. ina cali cabdiyadna sidaas laag waa la shaqo geeyay maxaa kuwan lisoosyada haystay aqalada jiifa ay shaqo u waayeen? caaqo ma noo sheegi kartaa? waanaan keeni doonaa, haddaan noolnahay waan keeni doonaa. in esamiyada la qoray caruurahoodii mawaantooda inanteedii ay esamiiga geysay, cali cabdina inantiisi seenesasta geeyey. marka dadka masaakiinta cali naakhuude wiilkan back cali naakhuude 4 cishaa lagu iloobay. humburuqlaysay reer turwaa horaad u kala qaadood kala kaxaysay oo tiri anaga habara wal ma shaqada qule habara wal meesha malade cid walbaa joogta ayaa odayga dhacdhacaya ee inta xun la kaca fadhiisanaya qabyaaladu buuxisay. turwaa cid walbaa joogta, soomaali oo dhan baa joogta, isaaq baa jooga, daarood baa jooga, gadabursi baa jooga, cafar baa joogta, suudaan baa joogta, carab baa joogta. xageed goorni ugu yeelanaysiin turwaa? xishooda annagaa ni maqalnaye cali naakhuude cimrigaa waxaad ku gaadhay eed la labalaboonaysa la daalaadhacaysa waa qabyaaladiiyo qurun. waxaad la suuqa la maaragtay la suqlaynaysa la maakhadaynaysaa wixii aad baratay waa baaskaade. wixii baa kugu soo maaxaya oo doonaysa inaad maaragtay ciyaalka reer kaarta turwaa kala kaxkaxayso. horaad u kala kaxayseene ciyaalkana waxaan leeyahay waryaa walaalaad wada tihiin, mid baa tihiin, waad isku duuban tihiin. waxaan idin kala qaadqaadaya barayna dhaafayaan qurunkooga, dhagaha u dhigina. kuwooga laakiin shaqo uma waayaan. kuwa masaakiinta unbaa shaqada loo laayahay soo maaha? caaq ismaaciil de waxba kama ogi turwaa. adu harajaan baad ku gadaaman tahay. etaa baraleel baa turwaa maxay ka taqaanaa? etaa baraleel iyay tahay horta iyadu ma isweydiiso cidda ay tahay. etaa baraleel oto proclame company kuleli dayacanay adu yaa tahay? ma ismacnaysa ma isa sheegtay? u sheeg ummadda cidda aad tahay. u sheeg ummadda cidda aad tahay. ilaan safigaagii waayaan mustafa facebook iyo bahashi maxay safiya madagaskar isku safi baa tihiin. shimbirba shimbirkii wuxuu ula duula waa qurunka de. isku mid baad ka tihiin nolosha adduunka. marka daaya carruurta turwaa oo ammaan siiya carruurta turwaa ee masaakiinta eed kala qaadqaadaysiin. shiinow adigana adigoo habeenkii baabuurka wata
oo meel daran taagan waan ku keenaynaa haddaan ammaanada hayno baatishuuf adu shiinoo warkaagu soo socdaa educationku kuu xalaaleeyo sidaa doonta ka yeeshaa kuma xisaabiyo soomaa mustafa facebook wixii aad ku heshiiseen dibaddaan keenaynaa haddaan ammaanada hayno waa keenaynaa laakiin turwaa way idinka xoroobaysaa cisho dhow haddii ammaanada la hayo marka ummadda masaakiinta ah ee la ciilay ee la cirib tirayo ee la doonayo inay sidaa unu cawlnaadaan ay u gaajada ugu jiraan anagu kama yeelayno lamana kala qaadi karo turwaa iyo jabuuti waa mid reer jabuuti iyo 5 gobol waa mid kala qaadqaadka iyo docodocaynta kuwanaa ku naaxa harajaan ku gadaamin ee masiibada ah ee dalka iyaga fusuq iyo qurunka aabaha ka ah ee caruurtayadii wada halaagee dulliga baday marka ma kuwanaan anagu wax ka sugnaa waar midooba oo ka kaca dhalinyaroy dalkan rag sidiina dhacsaday dalkan rag sidiina xoreystay dalkan rag sidiina ayaa fadhiga uga kacay carcaaq ismaaciilow arkee aeroboorada aad dhigayso magacadayadeed leedahay ma soo gali karaan dalka diyaaradii soo qaada waan ganaaxi annagu sidaan doonnaba aan ku nimaadne waan soo galaynaa dhulka iyaga naga celin kari maysid maalintaan soo caga dhiganana adu gabood baad ku jirta ay ku talagaltaa ku talagal annagu waa soo daadanayna baarashuudyo kalaa ku soo daadanana waa soo daadanayna nagamana xigtid nagamana celin karaysid ma dulligaanba dadka iyagu ku jirayaan waar annagu naftayda inaan u fidayno diyaar baan nahay inta naga dambaysaa nolol ku noolaan oo xoroobi shalayba rag baa u dhintay xornimada dad baa u shahiiday xornimada isbeddelkana maanta waa loo shahiidi ku talagal annagu geeri kama baqno ilaahay unbaa waxna dila waxna nooleeya taabaan yaqiinsanay caaq ismaaciil haddaad adigu isku haysato wax kalaa muuqan annagu maalintaas soo caga dhigano haddaan ammaanada hayno reer jabuutina waxaan leeyahay waar waxaad ka baqdaan oon ilaahay hayni ma jirto isku tashada oo fadhiga ka kaca waxaa jirta meeshii saanteega ahayd baa nood baa soo baxay ninkii dokteerkii muxuu ahaaye axmed rooble nood baad adiguna soo saartay waxaad leedahay waxa laaliya wixii benevol ahaa fantashiru fil ard dareeraad tidhi ha dareeraane 15 sano 10 sano 12 sano 9 sannadood bilaa lacag bay ku shaqeeyeen maanta ma waxaad go'aamisay inaad dadka cawda u jarto maxaa sababay de adna ma qolo kalaad keenaysa sifad baad soo wadaa kii kale ku kastoo yimaadaaba intiisa unbuu mushaharka u qoraa uu shaqaale ka dhigaa dadka kale oo ku daawadaa waar ilaahina ka baqade dadkani waa saaxiibul ciyaal dhexda xidhay oo intaasoo sano bilaa mushahar ku shaqaynaya benevol ahaa ma taqu min allaade shaqadiina way barteen kuwan cusubeed keenaysiin eed qabyaalada doonaysiin mid kastaba inuu safadiisa keeno war maad ilaahay ka baqdiin war dadka masaakiinta xaqooga maad siisiin haddaad eriyaysiin xitaa 15 sannadood ninka joogay 5 gobol iyo magaalo madaxda ka shaqaynayay ee caafimaadkii bartay sidee loo eryi karaa wasaaradda caafimaadku oo odhan karta waxba iguma le dad 15 sannadood u shaqeeyay xaq darrayba ahayd inay 15 sano bilaa mushahaar ahaadaan waa baadil qof dhan oo soo kalahaya oo 15 sannadood bilaa mushahaar adduunka xaggee lagu arkay jabuuti baa lagu arkay meel kale adduunyada laguma arag markaasaa maanta la leeyahay waa lagaa maarmee soco dee 15 sano wixiisii hala siiyo wuu mutaystay in shaqada la qoro inta kuwa kaloo cusub la qoree kuwan meeleeya horta ninba wax buu la yimaada axmed roblow adna makridadaabaad wadataa ilaahay ka baq dhakhtar baad tahay caafimaadka waa taqaanaa dadkan shaqada bartay inuu caafimaadku wasaaradda caafimaadka kalkaalayayaasha loo baahan yahayna waad ogtahay marka ilaahay ka baqo oo dulumka iska daaya dulumka dadka masaakiinta ah ka daaya dadkan la eryayana waxaan leeyahay war fadhiga ka kaca oo dulyada caynkaasi ha qaadanina ilaahay nima dulayna ha qaadanina marka waxaan sheegaya wasiirka cusub ee imika la keenay waa wasiir aakhir zamaane kulligood oo dhan waa wasiir aakhir zamaane waxaan ku sheegaya axmed roblow de wasaaradda caafimaadka doctor baad ka ahay dadkan inay benevol yihiin waad ogeyd sidee maanta adiga lagula sugay in la eriyo macnaha maadaa ka dambeeya maxaa keenay maxaa sababayse noo sheeg waxa sababay dadka masaakiinta in la shaqada la qoro oo shaqaale joogta laga dhiga ma oo mushaar loo furo 15 sano idiin shaqaynayeen oo habeen iyo maalin idiin taagnaayeen markaasaad maanta leedii waan eriyayna war ilaahayna ka baqa war khaafu min rabbikum taqullah war qabri iyo qiyaama jira war ilaahay ha laga baqo dadkan masaakiinta ah loo tiro war dalkan halkee looga imanaya ma cid kala soo daadanayso ku beeraysin dadkii u dhashay markaad saa u gashaan ee masaakiinta ah war ilaahayna ka baqa sidani waa dulum daalimiin baad wada tihiin
dulunka ku naaxo dulmiga isku bahaystay sidee dad intaas soo sano ninka u yar baa 10 sanadooda waa 9 sanadood iyay ku jiraan leeydi waa 15 waa 12 waa 10 waa 9 baa u yar war ilaahina miyaydan ka baqayn war khaaliqa raxmaanka miyaydan ka baqayn jaliilka jabbaarka facaalu lima yuriid baan idin dhiibaynaa rabbi baa idin ka qaban idinku inaad iyaga eridiin baad ku takashateen laakiin ilaahay kuma jiro halkii aad ugu tashateen marka doctorka sheegaya Axmed Roblow ilaahay ka baq haddaad adigu decisionka la timid dadka doonaysa inaad dareeriso adiguna ka dambeyn maysid caaqiladooda ku dhufan ee iska daa dadka masaakiinta ah shaqaalaysiya wasiir kasto yimaada ila jaamacteele ila adaygi kale isxaaq muxuu ahaa wasiirka caafimaadka waxa soo dhan nin kaliyaata oo wadalka shaqaaleeya ma jirto Dr. Qasim Isxaaq odaygi loo oranayay Cafareed isagana nin kaliya jaamacteele ninkii Maxamed Warsame waxa soo dhan ila maan Ali Yaqub aan kaga soo qabanno ila maankii kale Cabdillaahi Migil waxa soo dhan nin kaliya oo dadka shaqaaleysiiyay ma jirto war ilaahina ka baqa war dulmika dadka ka daaya war waxanaad boomaysiin iyo lacagahan iyo daarahan aad dhisateen calfan maysiin ee ummadda masaakiinta aqiladooda iska daaya dacaaqa ugu wacan ila madaxa sare markuu buka mijuuna way daalaani waa sida waxana haystade waxa la wuxuu og yahay male war dadka marka la soo hurgufo ee inta soo sana shaqaynaya xagee wajiga saarayaan war ilaahina ka baqa war khaafu min rabbikum taqullah umada reer Jabuuti fadhiga ka kaca waxay nin naxaya meesha ma joogo Allah idin maqan ilaahay baa idin maqan daalimiintana iska kicino ka kaca fadhiga war ka kaca fadhiga geerida waa loo dhashaa dhagxumo waa laga dhintaa dhagxumo ee geerida waa loo dhashay ka kaca waxani waa dhagxumo laynibada iyo dulli aan ilaahay idin duleyn weeyaan waa daalimiin waa kaahiniin waa faajiriin wax allaaliya waxay yihiin lama yaqaano waxaan salaamaya umada reer Jabuuti daliya dibad waxaan leeyahay waan guuleysanaynaa fadhiga aan ka kacno salaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatuh